Because this, as I said to all of our partners, that this notion or idea that the United States would ever be distracted by the Indo-Pacific or even Southeast Asia is impossible. You can't be, maybe it doesn't always, wars get more attention, but it's impossible to not be focused. This is where much of the story of the 21st century is going to be written. This is where 2/3 of economic growth is going to happen over the next 25 or 30 years. waxaa si tartiib loogu socdaa jiha halis oo aan si rasmi ah loogu dhawaaqin balse ay si muuqda u wadaan laba ka mid ah quwadaha ugu weyn caalamka Mareykanka iyo Shiinaha eraya adag hanjabaad dulmaasiyadeed salgiga military heshiisyo sir ah iyo ololayaal warbaahineed oo midaysan ayaa calaamad u ah dagaalka afka ee labadaas quwadood ku loolamayaan si gaar ah gobolka Aasiya kaasoo hadda loo arko inuu noqon doono halka laga qori doono sheekada dhabta ee qarniga 21 hadalkan waa xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Marco Rubio oo isagoo ku sugan dalka Malaysia Khamiistii toddobaadkii hore si toos ah u sheegay in ay Aasiya tahay meesha laga qori doono taariikhda qarniga cusub wuxuu xusay in Mareykanku uusan weligiis ogolaan doonin cid kale inay la wareegto labada bad waa badda Hindiya iyo badda Pacifiga taasoo muujinaysa in Washington aysan ka leexan doonin dadaalada ay ugu jirto inay xakamayso saamaynta sii xoogaysanaysa ee Shiinaha hadalka wuxuu yimid xilli uu sii kordhayay xiisadda ka taagan badda Shiinaha Koonfureed halkaas oo Shiinaha uu ka dhisay salgiga ciidan oo u eg jasiirada macmal ah oo biyo kala xadeynaya dalal dhowr oo ay ku jiraan Philippines, Vietnam, Malaysia iyo Brunei Mareykanka oo sheegay inuu difaacayo xorriyadda maraakiibta caalamiga ayaa halkaasi joogta ugu diray maraakiib dagaal iyo diyaarado taasoo Shiinaha u arko fargelin toos ah oo sharci darro Shiinaha waa aan jawaabtiisa dib u dhigan ayaa isla maalintii hadalkan uu soo saaray Rubio waxa ay si degdeg uga falceliyeen hadalkiisa iyadoo afayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ay si kulul u sheegtay in Mareykanka uu ku fakarayo maskaxdii dagaalkii qabooba afayeenka ayaa intaa ku dartay Mareykanku inuusan ahayn dhinac ay qusayso gaar ahaan badda Shiinaha Koonfureed sidaa daraaddeedna uusan xaq u lahayn in uu fargelin ku sameeyo muranka ka taagan gobolka waxaa si gaar ah loo xasuustaa in Shiinaha uu sheeganayo in dhammaan jasiiradaha ku yaala badda Koonfureed ay yihiin dhulkiisa taasoo uu adeegsanayo sheeko xambaarsan sooyaal taariikheed balse wadamada kale ee gobolka iyo maxkamadda caalamiga ah ee ICJ waxay si cad u sheegeen in sheegashada Shiinaha aysan sharci ahayn wargeyska Global Times oo ah afayeenka aan tooska ahayn ee xisbiga shuuciga Shiinaha ayaa weerar ku qaaday Mareykanka isagoo booqashada Rubio ee Aasiya ku tilmaamay booqasho ku timid quwad walaacsan oo isku dayaysa inay si haysato xukunkeeda waxay warbixintu tilmaamtay Mareykanku inuu u muuqdo quwad hoos u dhacaysa oo ka baqaysa in kursigeeda hogaaminta caalamka laga bedelo haddaba maxaa ka dambeeya dagaalka aan la sheegin balse si muuqata u socda dagaalka diblomaasiyadeed iyo military ee bariga fog tartanka u dhaxeeya Mareykanka iyo Shiinaha wuxuu aad u kordhay tan iyo markii Shiinaha uu noqday awoodda dhaqaale ee tartamaysa sanadihii u dambeeyay Beijing waxay xoogga saartay xoojinta awooddeeda ciidan waxayna samaysay istiraatiijiyadda inay salgiga cusub ka dhisato jasiiradaha ku yaala badda Shiinaha Koonfureed tani waxay keentay in Mareykanka iyo xulafadiisa gobolka ay bilaabaan ololayaal ciidan si ay u muujiyaan in baddu tahay mid furan oo caalami ah laakiin xataa meel ka fog gobolkaas Mareykanku wuxuu xoojiyay xiriirka uu la leeyahay Taiwan taasoo Shiinaha u arko gobol goonigoosada iibka hubka casriga ee Mareykanku siiyay Taiwan iyo safarada mas'uuliyiinta Mareykanka ee ku tageen Taiwan ayaa loo arkay inay yihiin talaabooyin lagu dhiirigelinayo goonigoosadka Taiwan taasoo Beijing ay aad uga carotay si loola tartamo arrintan Shiinaha wuxuu bilaabay inuu si firfircoon u xoojiyo xiriirka uu la leeyahay dalalka aan xulafada la ahayn Mareykanka sida Ruushka Iran, Venezuela iyo wadamo badan oo Afrika ku yaala sidoo kale barnaamijka Belt and Road ee Shiinaha uu asaasay waxa uu noqday aalad awood leh oo Shiinaha uu isticmaalay inuu kobciyo saameyntiisa caalamka isagoo maalgelin ku sameynaya kaabayaasha dhaqaale oo dhanka wadooyinka dekedaha iyo salgida korontada Mareykanka dhankiisa wuxuu muujinayaa istiraatiijiyad adag oo isugu jirta xulafayn cunaqabatayn iyo difaac istiraatiiji ah wuxuu xoojiyay xiriirka uu la lahaa Japan, Australia, Koonfur Korea iyo Philippines isagoo la galay heshiisyo difaac tababarro wada jira iyo salgiyo cusub oo ciidan oo halka uu ka furtay xukuumadda Trump iyo tii ka horeysay ee Biden waxay si cad u kordhiyeen cadaadiska ay saarayaan Shiinaha iyagoo adeegsanaya xayiraadda dhinaca tiknoolajiyadda gaar ahaan qaybta AI-da iyo nidaamka internetka ee 5G waxaa sidoo kale bilowday
dagaal dhaqaale oo labada dal u dhaxeeya oo uu sal u yahay canshuuro la duldhiga badeecooyinka Shiinaha laga keeno taasoo Shiinahana uga jawaabay badeecadaha Mareykanka waxayna arintani abuurtay jahwareer suuqyada caalamka ku dhacay halka ugu daranse Mareykanka ay noqotay Mareykanku wuxuu aaminsan yahay in haddii Shiinaha uu ka helo saameyn buuxda gobolka Aasiya gaar ahaan baddan koonfureed inay arintu ay noqon karto tallaabo uu ku gaarayo hogaaminta caalamka kursigana laga tuuri karo Mareykanka sida daraadeedna uu dhantaalmo nidaamka caalamiga ee Mareykanku soo hogaaminayay tan iyo dhamaadkii dagaalkii labaad ee adduunka inkastoo dagaalka u dhaxeeya Shiinaha iyo Mareykanku hadda yahay mid ku kooban dhinaca diblomaasiyadda iyo dhaqaalaha haddana khubaro badan ayaa aaminsan in xiisadda ay si sahal ah isugu bedeli karto dagaal toos ah tusaale ahaan haddii Taiwan la weeraro Mareykanka waxaa saaran cadaadis caalami ah oo ku khasbay inuu difaaco jasiiradda taasoo noqon karta bilowga isku dhac weyn oo ku lug yeelanayaan quwadaha ugu waaweyn sidoo kale mid ka mid ah meelaha ugu nugul waa badda Shiinaha koonfureed haddii uu dhaco shil ay ku lug leeyihiin maraakiibta dagaal ama diyaaradaha labada dhinac waxay keeni kartaa isfahan la'aan oo sababta dagaal foolka fool ah intaa waxaa dheer tartanka tiknoolajiyadda sirdoonka iyo warbaahinta ayaa sii horinaya xiisadda Shiinaha wuxuu xoojiyay nidaamkiisa sirdoonka gudaha wuxuuna kor u qaaday weerarada dhanka internetka oo lagu eedeeyay inuu ku beegsado Mareykanka iyo xulafadiisa dhankiisa Mareykanka wuxuu bilaabay inuu xiro ama xayiro shirkado laga leeyahay Shiinaha sida Hawaii iyo markan uu doonayo in barta TikTok ay noqoto qayb ka mid ah waxyaabaha la xanibayo iyagoo ku eedeynaya inay halis ku yihiin amniga gudaha qarniga 21 ma waxa laga qori doonaa Aasiya sida hadalka xogayaha arrimaha dibadda Mareykanku uu muujinayo Mareykanku waxa aaminsan yahay in qarniga cusub lagu go'aamin doono gobolka Aasiya waxaana cad inuusan diyaar u ahayn inuu ka haro dagaalka awoodaha dhankiisa Shiinaha waxa uu arkaa in uu gaaray waqtigu dib u ceshan lahaa doorkiisa taariikheed wuxuuna diyaar u yahay inuu wajaho cid kasta oo ka hortimaada haddaba waxaan hadda daawanayna ma ahan kaliya khilaaf siyaasadeed waa dagaal cusub oo mid saameyn ku yeelan kara mustaqbalka nidaamka caalamka ma jiri doonto cid si toos ah u sheegan doonta gul balse waxa la hubo ayaa ah in haddii aan la helin waddo diblomaasiyadeed oo dhaba qarniga 21 waxaa lagu qori doonaa dhiig xasuuso iyo qoomamiyo laga hadli doono qarniga dambe